أهلا وسهلا محمد كسو دو تلفزيون كيونيفرسال iyo barnaamijka Hirar Hargeysa aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijkan aad nagala soo qayb gasho maxamed wariyaal fara badan iyo siyaasiyiin fara badan baad codadkooda sameysay caan ku tahay goor baad bilowday markii ugu horeysay arinta wallahi toddobiyi sideetankii anigoo ciyaara ayaan baakadhada sigaarkan baa warqada dib uga saaray ayaan waxaan ku bilaabay ninkii loo jiray maxamuud xasan waatay maxamuud xasan xaaji cumar waatay codweyna sida sheekh cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaan codkaa ku bilaabay dabeetana ciidamada gaashaanbuurta naytoban oran jiray waatay maxamuud xasan hadda bal codkiisii wax naga maqashay ciidamada gaashaanbuurta nayto ayaa sheegay inay sii wadayaan dagaalka culus ay ku hayaan caasimadda jugoslav lagamdada kama dambaysta madaxweyne benesafish waddankaasi uu ka tegay xubnaan qof ayaa dhegsa dhiigga loo diray halkaasi oo la sheegay in madaxweyne benesafish uu ku hayo dagaal culus masarbiyiinta bosnia marka dabcan waa wariyihii hore ee laanta af Soomaaliga ee BBC da Maxamuud Xasan isaga kugu horreeyay marka qof aan codkiisa matasho qofka aan codkiisa matala isaga igu horreeyay waatay dadkii marka aad sidan oo kale ugu akhriday markii ugu horreysay ma yiraahdeen dawaa Maxamuud Xasan halka soo taagay waa Maxamuud Xasan baa la oran jiray dabeetana waan kordhiyay waatay nin Nairobi ka hadli jiray oo loo jiray Axmed Maxamed Nairobi Axmed Taajir ay dadku dacaydaya ma geel fara badan iyo waxay ku dacaydeen jireen man ayaan bilaabay waatay Axmed Taajirna bal hadda codkiisana maqashay islaan sideeta jira ayaa waxaa la sheegay inay timi dugsiga hoose dhexe halkaasi Kenya ku yaala halkaasi oo la sheegay inay wax ka baranaysay macallimiintu waxay sheegeen inay halkaasi u diideen balse lagu qancin kari waayay aynay iskuulka asare wax ka barato waa tahay wariyaasha kale codadkooda aad samayso iyaga way noo soo noqon doonaa bal hadda dhinaca siyaasiyiinta iyagana yaad ku bilowda siyaasiyiinta waxaan ka bilaabay horta siyaasiyiinta waddanka maanta daahir yaala kaahin ayaa waqtigii ololayaashii xisbiyada ayaan bilaabay inaan codkiisa keeno way waqtigaa anigoo marxaladii siyaasadeed ee waddanka ku dhex galay xisbigii markaa kulmiye taageeray ku noqday madaxii wacyigelinta degmada gacan libaax ayaan bilaabay inaan madaxweynihii anoo iminka ka raali gelinaya maadaama siyaasad kulana dhex martay meel kasta oo jooga madaxweyne daahir riyaale waxaan leeyahay inuu saamaxay ayaan markaa bilaabay inaan codkiisii keeno way markaa moobilada waddanka Somaliland oo dhan kala badh buu ku jira way anoo Axmed Saciid iyo matalaya daahir riyaale way Axmed Saciid iga waa noo soo noqon doonaa bal hadda daahir riyaale wax naga maqashay daahir riyaale la wareysanay madaxweyne Somaliland siyaasiyiintu waxay kugu eedeynayaan in aad Somaliland adigu qaska gelinayso oo xidhay xarunta xisbiga kulmiye idinko ka baadhaya ilaa yiraahdo Yodiyaal oo sheegeen in aanay ahayn ilaa taalayn xaruntooda bilaa maxkamadnaad ku gashay arrintaas maxaa ka jira waanu baadhaynaa Somaliland waxaan sheegaya jiraan yom xanaasho waanu baadhi doonaa waxa la wixii sharci daraan waan ku hortaginaa ummadda Somaliland ما رجتاني إحنا لسه ما شرتو إذا أنا كأقبل أنا ما شرتو وأنا شيء يا شرايو هدي دوري يعني دور شو حلو حلال يقان حل جد يقان أنا أقول لي كردي تيوري ما أنا جا قبتي كنا كلها قلت لي كردي أنا شيء يوم دريس ومال حسبي كلمية حسب قص وديان وفي النورية وي madaxweyne arrintaasi waxay kaga calaysisay xisbiga kulmiye oo taagan madaxweynuhu doorashada isaga dib u dhigaya oo hadii waxa doorasho la qaban lahaa kolba guurtidii soo gudbinaya in hadii la yiraahdo dib loogu dhigo arrintaasi maxaa ka jira waxba kama jiraan doorashadii hore baan ka qabtay waxa lagu wasbay in doorashada dib u dhigo arrintaasi aan wadiiyay ma aragtaanay كلنا قرقب الشبيه كم قرقريسو دورشدو waxay u baahan tahay caqli iyo xoog ma baahan jaasan ku qanacay xisbiga waxa ka warhaya maxamed in siyaasiyiin Soomaaliyeed oo kale iyagana codadkooda aad sameeyso kuwa ka mid ah
waxaa ka mid ah salaad cali jeelle oo muddo fara badan dee reer waqooyigu ma wareystaan dadka maskaxdooda wax kusoo dhacaan soomaalida markay tiraahdo qeybteena reer waqooyi wali waxba kama duubaan in badan oo siyaasiyiina qalbigeyga ka baxday laakiin salaad cali jeelle iyo inaan hayaan ma filayaa cabdillaahi yuusuf waata cabdillahi yuusuf aan ku horeyno waxaan idiin sheegahaya magaaladii muqdisho in lagu bulqdaa baa loo baahan yahay ummadii soomaaliyeedna in laga xoreeyo fidmoolayaasha ayaa loo baahan yahay magaaladii muqdisho in la tagaayo wadnaha la gufaystaa baa loo baahan yahay dhinaca somalilandna waxaan leeyahay wadanka yare boorama kasoo duulay ee laascaanood qabsaday inuu boorama ku noqdaa baa fiicnayd annagu ninkii meeshaan haysa jira ee ka horreeyeyna agaa la odhan jiray saaxiib baanu ahayn oo waraaqay waxay yaalaan xafiiskiisa inuu baadho oo waraaqay uu ka eegaabaa wanaagsan waxaan u sheegahayaa somaliland inaan beelaha walaalaha ay wada degaan la isku dirin oo fidmo la dhex dhigin waatay wariyayaashii qaar kaloo kamid aynu kusoo noqon doonaa iyo dadka kale ee bulshada magaca kule kuwa codadkooda aada hayso laakiin bal hadda waxaad ka warantaa maxamed salaad cali jeelloo kale isagu siduu hadlaa salaad cali jeelloo kale wasiirka xogeenka gaashaandhigga ee soomaaliya oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa wuxuu sheegay arrintaasi ethoobiyan inay la socdaan inaanay jirin waana kan adeerow ciidan etoobiyaan aanu wadanaa ma jiraan ciidamadeenu dagaalka ay ku jiraan argagixiso ay kula jiraan ciidamadeenuna waxay la dagaalamayaan argagixiso waaye ciidanka ethoobiyaanu wadanaana tababarayaal waaye oo dowladda soomaaliya xaq bay u leedahay ciddii ay keenayso salaad ma waxaad leedahay ciidanka etoobiya ee wata kaarayaasha iyo madaafiicdu waxa weeyaan ciidan tababarayaala hadday tababarayaal yihiin maxaa madaafiicda ku raray adeerow idinkaa sheegaya ciidanka etoobiya ee kaarayaasha wataa wax ka jiraan ma jiraan inaad meesha timaadaan baa wanaagsan ood idinku indhihiina ku aragtaan waxaan la dagaalamaynaa argagixiso waaye argagixisadana ciidanka iyaga cidaga tababaraysa xaqay u leeyihin salaad ma waxaad leedahay ciidan wariyaal ingiriisaa yimi oo ad u diideen xeryaha militariga markaasoo nagana noo diidi maysaan haddii aanu dhimaadno adeerow dowladda soomaaliya xaq bay u leedahay xeryahooda ciddii ay u diidayaan angolaashiya iyadoo laga haysan in ciidamo kamarad loola galo oobaad iska garanaysaano kaasuu sidaasoo kale u hadlaa salaad cali waatay maxamed waxaan ka warhayaa in shariikadaha telefoonada ee hargeysa qaarkood aada fariimaha adigu u duubtay marka ayaad iska dhigaysa axmed maxamed waa tay halkan uu yidhaa naga raalli ahaw numberka aada garaacde waa dasan yahay ama wuxuu ka baxsan yahay goobta adeega saasoo kale weliga axmed maxamed ma la kulantay ama dadkaa kale siyaasiyiintii wariyayaasha le aada codadkooda samaysay may qoladan qaranka t v-ka qaranka mooyaane lamaan kulmi waa tay wariyayaasha maxamuud xasan baanu maqalnay waxaanu maqalnay oo kale axmed maxamed kuwa kaloo codkooda aada samaysaa ma jiraan ha way jiraan waay cabdillaahi xasan jaamac baa jiray cabdillahi xasan jaamac waa cabdillaahi ruush waa tay madaxweynaha ruushia valadimir putin ayaa sheegay inuu dagaalka chechnya uu sii wadayo madaxweynaha ruushia mar uu ka hadlayo dalka kan america ruushia wuxuu sheegay inuu dagaalkaasi aanu joojinayna ilaa iyo muddada kama dambaysta ciidanka chechnya ay ka baxayaan buraleyda agorojin waa tay wariyayaal kugu adkaaday oo codkooda aada samayn kari weyda ma jiraan kolley waa badin waa tay kuwa kamid ah waxaa kamid ah cabdisalaan heriri oo nimanka la fadhiyo waa tay bal hadda isku day miyaad isku dayi kari weyday saarin ku hadlayo kale adiga iyo ninka cawkalayda hay cawkan aada u saaxiibnayo isaga dee aan hay labadaa nin ma hayo laakiin yonis cali nuur waa tay yonis cali nuurna hadda waxaan hubaa qaar fara badan oo daawadayaasha kamid inay jeclaan lahay inay maqlaan ciidamada ruushanku diiradaha ay leeyihiin ee loo yaqaano sagaashan ayaa waxay dulmareen badda pacifica oo ay ku tababarayaan ciidamada maraykanku halkaasi oo diyaaradaha ay ka hor direen ay gaari waayeen xagga duulimaadka ee hawada sare waxaa la sheegay in ingiriisku diyaaradaha miraajka loo yaqaano ay ku direen halkaasi oo iyaguna ay gaari waayeen in ay diyaaradahaasi cirka xagga duulimaadka ay ku gaadhaan diyaaradahaasi ayay filayaan ingiriisku inay ku socdaan suuriya oo laga sheegsan yahay in hobka lagu yeeri ka haysato
maxamed mararka qaarkood asxaabtaada iyo markaad la kaftamaysaa maad la ciyaaraysa oo kale ee telefonaad kula hadlayso ma isaga dhigtaa dadka kale wariyaashii siyaasiyiinta ما يوجه البيت جلس عليهم haya haya كما تقول عن سيادة باللي ورياشاس عاد شكون على أنا ده قف يا قف كلايس كدكت يعني وجه شاوين وقف waatay maxamed mataan xirsi maxamed siyaaro aad iyo aad baad umahadsantahay